Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhyari kusoo dhawaada channelkeena Saf TV. In badan ayaan kala maqneen hase ahaatee maanta waxaan dul marayaa maadaama ay tahay xilligii ugu dambeeyay Premier League la marayo bilihii u dambeeyay waxa iska haray ayaaba yarba gamekii shalay u dambeeyay ee Arsenal ay dhashay kaasoo walibana West Ham aan la dheelaynay gurigooda. Gamekaasi shalay dadka si badan ayaa maartay loogu kala tagay qof dad badan ayaa ee dusha laga saaray dad Arteta ay dusha ka saareen wayna ku saxsan yihiin sidaan filayo dad anigoo kala ciyaaryahanada qaar ay dusha ka saarayeen eeda adiga maartay qof ruux ayuu dusha ka saaray baasha laakiin gamekan iyo gamekii Liverpool ba aniga waxaan dusha ka saarayaa laba ciyaaryahan plus Arteta gamekii Liverpool aan la ciyaarnay runtii aad ayaan u controlnay first half-kii hore qaybtii ugu horeeyay 25 daqiiqo ugu horeysay hase ahaatee Arteta wuxuu fahmi waayay in ciyaaryahanka Partey uu ahaa ciyaaryahan Sooman isla markaana uusan awoodin in uu dhaxda uu ku ordo khadka dhexe inuu ka ordo oo ninka aad taqaanay seasonkan sidoo uu ciyaarayay Ramadan inta uusan bilaabanin ninka looga tashanay dhaxda ninkii free ka dhigay Shaka free ka dhigay inuu hore iska aado oo maartay iska baashaalo ninkii maartay Zinchenko iyo right back free maartay free movement siinay in ay maartay pitch meel walba ay ka tagaan wuxuu aad oo la xarbinayay inta uu Soomanaa Ramadaankan uu bilaabmay inuu maartay khadka dhexe maartay uu controlo sidoo kale sida ka dareemaysan ciyaaryahanka wuxuu iska ilaalinayay in uu ordo waayo taas waxay u keenaysaa in uu maartay uu oomo xubnihiisana ay maartay dhacaanka intuu ka dhamaado ay daalaan taasoo maartay neeftur maartay ku sabayso inuu bilaabmo marka wuxuu dhahay ciyaaryahanka maadaama lagu doortay garoonka lagu soo galiyay tartiib u ciyaar si maartay aan maartay si caqliyeysan u ciyaar ayuu isla ciyaaryahanka laakiin ma uusan dareemin in maartay dadka uu ka hor imaanayo Liverpool ay yihiin dad maartay sharafta intay ka dhacday maartay surwaalka ka dhacay macwiisi ka jeexjeexantay hadda isla soo qabataan oo kugu soo ordayaan hase ahaatee ciyaaryahanka kaliitaas kuma lahayn waxa eeda kale isna ku lahaa Arteta oo la rabay ciyaaryahanka in uu fahmo hadduu first half si fiican kugu dheelay ama 25 daqiiqo ugu horeeyo laba goolna aad leedahay inaad Jorginho soo gadato Jorginho ciyaaryahan xun ma ahan adiga ayaa soo gadatay adiga ayaa dooratay adiga ayaa dadka u amaanay runtii waan ciyaaryahan fiican ayuu ahaa intii uu maartay Partey naga maqnaa ciyaaryahanka Arteta 5 game isku xigtay ayuu dheelay 5 aad ayuu fiicnaa marka in uu maartay bedel uu sameeyay ay ahayd sidoo kale gamekii hadda aan maartay shalay aan dheelnay West Ham aan la dheelnay isaguna Partey iyo Gabriel marka inaan leeyahay waa idin sheegi doonaa waxa aan maartay ninka aan aad shalay ugu nacay gamekan uu sameeyay Arteta uu ku jira maadaama uu yahay Premier League ninka ugu xun markii la dhaho wax bedelinka ugu xun waa Premier League markii la dhaho Partey sidoo kale shalay uu daalna sida arkayseen teeda kale khalad ayuu sameeyay handball ay banonta laakiin si walba meeshan waa Premier League banonta de handball tahay ina istaagta maaha banonta adiga khalad ka sameeyay banonta waa ina difaacata waa ina daboorda ina Premier League in aad maartay reefka indhaha ka gasho maahan marka taa khalad ayuu ku lahaa oo ku soo manaaw nin daalan uu ahaa maartay gameka in lagu soo bilaabo ma ahaynba sidoo kale Gabriel Jesus striker wiligii ka mentality xun oo kara iyo xun wiligii ma arkin ninkan shalay gool ayuu xiray gool kale ayaa hadana xirnay 15 daqiiqo ugu horeeyay ciyaartii oo control-leynay Arsenal 80% ball possession ay maartay ku control-leysay West Ham gurigeeda wax walba si fiican ay u socdeen ninkan wuxuu bilaabay in uu soo dego ma aqaan muxuu isdahayay labadan gool ilaasho maxay ka ahayd uu soo degay right back Ben White halkuu ciyaarayo la imaaday wuxuu bilaabay in uu maartay back passes uu la dheelay ninkaas banoon gadaal loo celceliyo banoon dhaxda lagu hayo runtii dhowr mar waxa arkaynaa gameka inta uu socday in inta la soo dhisay banoonta Quarantini asagoo doonayo in uu cross soo qaado uu fiirinayay boxka hal qof oo taagan uusan arkaynin taasna waxa uu sabab ahaa in Jesus-kii la reebay in uu maartay banaankiisa uu taagnaado meesha uu taagnaado oo la rabay inuu noqdo striker baahan oo goolal u baahan sida Haaland oo kale mar walba 90+5 gool raadinayo
ninkii waaba difaac baa noo soo galay khadkii dhexe ayuu wuxuu ku sameeyey runtii Odegaard shalay dadka aad waxay u canaananayeen Saka gamekiisa uu dansanaa ay lahayn laakiin gamekiisa ninka muxuu dansanaada asaga iyo Odegaard waxa ma aragtay booskooda ka khaldayba nin Gabriel Jesus ay dhahaan oo meel uu ka ciyaarayba la fahmi waay difaac uu soo galaya dhaxdo imaanaya runtii wareer ayuu ku sameeyay teamka markii saas oo kale ay jirtana waxaa fiicneed in maartay coachka intuu fahmo ninkan uu ku qaylay oo la hadlo uu dhaho booskaga qabso laakiin ma yeelin Arteta asagana waxa waayo waa fulay dhulka hadii uu dhacdid wuxuu isleeyahay ninkan ha ka kicin teeda kale ciyaariyahan uu bartay uu isleeyahayna ninkana meel ku soo gaarsiiyay ha ka fuqin hadii ay ka xun tahay xitaa ma yaqaan maanta sabka ayaa waxa kugu jiraan ciyaariyahana aad u fiican soo qaada ma garanayo xilli game uu badiyay oo aan loo baahnayn inuu sab u keeno iyo wuxuu koonsanayaa maartay sababka loo baahan yahay maalinka ay ciyaarta ay ka xun tahay sidoo kale Saka isna gamekiisa dad badan ay eedeynayeen sidaan idin sheegay laakiin aniga eeda mar walba waxaan dusha ka saaraya gamekii shalay Arteta oo ah ninka ugu go'aan xun Premier League markii bedel ay noqoto ee Gabriel Jesus oo aan fikrad iyo mentality weligii aan striker aan ku arkay nin maartay 2 gool ba hadii la xiro oo maleynaya in Premier League ciyaarta uu sida uu ku badiyay inuu difaacaha oo banoontiisa ilaashado striker aan ku tashanaynin inuu top scorer inuu noqdo oo maartay halan uu la tartamo runtii arintan aad ay u xumayd hase ahaatee liigan wali Arsenal gacanteeda ayuu ku jiraa hadii ay bari ay soo badiso hadii ay maartay gameka sida ogtihiin ba Man City Premier League ma dheelayso Man City 2 game ay dheelaysaa labada game midna waa Carabao Cup aan jeclahay mise waa FA Cup midna waxa weeyaan waa Champions League kadib ay anagana sheegayeen labada game markay soo dheelaan anagana game ayaa nooga sii horeeyo Southampton aan la soo dheelaynaa kadib ayaga ayaan la dheeli doonaa hase ahaatee ayaga Premier League anaga ay nagu sugi doonaan gameka ayaga aan la ciyaari doonana hadii aan banjarno ciideenu ma iska aadeena wax kale oo la qabanayo ma la runta isku sheegi laakiin wali gamekan Arsenal gacanteeda ayuu ku jiraa hasha dhibic ay ku adkeysan kartaa way ku qaadi kartaa laakiin Arteta iyo maartay iyo decision xumadiisa iyo maartay go'aanadiisa qaabka daran iyo bedelkiisa xun ayaa maartay dhaawac badan inuu u keenayo aan arkaa shalay oo kale hadda Saka inuu bixiyo ay ahayd oo Gabriel Jesus uusan soo noqonin nin mentality-gaas oo kale leh striker mentality-gaas oo kale leh garoonka ma lagu sii hayaba ama lagu qayliyaa ama garoonka laga baxa Nelson inuu xilli hore uu keenay ahayd laakiin xilli ciyaar ay 5 daqiiqo ka dhimantay in ciyaariyahan meesha ku soo tuurto oo maartay maalin walba jimco maaha sidii hore oo kale kaaga mufujinayo marka Arteta waxa leeyahay sida iska bedelnay oo coach fiican aan tahay waa ku aaminay anagoo tafoo kali ka rabnaa maartay xogaa indhaha noo furtay maartay waxaan geysay meel aan filaynin haddana sidii ku aaminsanahay waxa leeyahay ninkan iyo ku soco geeg yaana laga qaadin Premier League waa ognahay waa xoog ku malihin ada maartay macallin ah in adeero Premier League noo soo qaad waagi Arsenal Premier League ugu dambeysay ee qaatay 2004 afar sano jira ah wax aan ka warqab malahan meel banoon laga daawaday iyo Arsenal laftirkeeda ma garan jirin hadda laakiin maanta anigoo intaan la eego Arsenal garanayo waxay gudo og hadii Premier League ii qaado niyahu waxa waay waa 10 sano soo socoto waa maartay waa iska kaashiga am fan laakiin waa ku aaminay adiga meeshan keenay in ku aaminadaan oo qasabtay Premier League qad asxaabi waa idin salaamaya waana soo noqday waxa isku dayayaa inaan maartay seasonkan inta uu ka dhamaanayo si joogto ah in aan maartay aan Arsenal videoyada u soo dhigo hadii Ilaahay idmo haddana sida ay waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh